dowladda federaalka Soomaaliyeed oo arkaysaan in ciidamadii qalabka sida noo dhismayaan ama dhismeen intooda badan waad arkaysaan Soomaaliyay in qaramada midooba golahooda ammaanku uu go'aamiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida awood u leeyihiin u qalabaysan yihiin una tababaran yihiin inay hantaan amniga dalka lana wareegaan sanadka 2024 haddaan kalsooni lagu qabin haddayna muujin awood iyo firfircooni iyo karti iyo tayo golaha ammaanku go'aankaas ma gaareen maantay oo loo dabaaldegay 62 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ugu hambaliyaynaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku-xigeenkiisa iyo taliyaasha ciidamada dhulka cirka iyo badda iyo hoggaanada iyo qaybaha ciidamadaba saraakiisha saraakiisha saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo alifleyda iyo qoysaskooda iyo xaruurtoodaba hambalyan leenahay maanta waad ka farxiseen shacabka Soomaaliyeed adduunka meel kasta uu ka joogo dalka gudihiisa dibadiisa waxaad muujiseen awood niyadda ka jabisa cadawga Soomaaliyeed iyo argagixisada hore u socda ayaan idin leenahay shacab idin garab taagan iyo madax idin garanaysa waxa aad gashaan iyo waxa aad goysaan ayaa dalka joogta oo ugu horeeya madaxweyne Farmaajo oo dhisay ciidanka maanta awoodooda iyo cududooda la arkayay oo shacabka Soomaaliyeed ku farxeen oo xaqiijiyay tayadooda iyo in tababar la siiyo xuquuqdoodana meel saaray oo marna mushaar iyo aan xuquuq weynin halka dawladihii ka horeeyay xuquuqda ciidanka ay duudsiiyeen iyo shaqaalaha Soomaaliyeed ay daarada dheer ka dhisteen ay macluul u dileen ciidamada iyo shaqaalaha Soomaaliyeed iyo ummadaba maalmahan waxaan maqlayay 12 Abriil inqilaab ayay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax lala fajaco oo ceeb ah oo fadeexada ayaa meesha ka muuqda siyaasiyiinta iyo kuwa ismooda inay wax gartaan erayada isticmaalaya ku hadaaqaya waxay diidan yihiin sharafka iyo karaamada Soomaaliyeed iyo in dawlad Soomaaliyeed ee hanata ilaalinta iyo difaaca dalka xuduudihiisa cirka dhulka iyo badda ayay diidan yihiin kuwa anigu waxaan u aqaanaa sharaf diid qaran diid ummadda Soomaaliyeed cadow inay ku yihiin aan u aqaanaa halkii ay ku farxi lahaayeen inay makhaayadaha iyo guryaha inta galeen ay leeyihiin inqilaab baa maanta dhacaya maanta dalka khatar buu ku jiraa kuwa khatarta dalka gelinaya waa kuwa sidaa u hadlaya waxaan shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa cadowga Soomaalida ah ee midabkeena leh ee dawladnimada diidan ee horumarka noo diidan ee ku raaxaysanaya dhibaatada argagixisadu ku hayso dalka iyo dadka war ilaahay idinku dhaarshay Soomaaliyay anugi 10 sano gaara meelaha argagixisada iyo al-shabaab iyo cadawgu ka taliyaan waxa lagu khasbayaa oo waalidkii looga wadanayaa in qoran loo dhiibo ee la ilaa isqarxi jannad galaysa anug yaro saqiir mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ayna dhibaynin arintaasu ee magacyo inay yeeshaan qaranka inay hogaamiyaan rabaan una tartamaan shacabka Soomaaliyeed ku abaal marin maayo kuwa dhibaatada u abuuraya inay hoggaanka u qabtaan waxaan leeyahay siyaasiyiintay intay isku noqotaan isxisaabiya waad ku magac beesheen shacabkiina iyo dadkiina hoostooda waxaa la idin yaqaanaa kuwa dhibaato kaliya ka shaqeeya kuwa dhibaatada Soomaaliyeed ku farxa waxaan maanta hambaliyaynayaa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan hambaliyaynayaa shacabka garab taagan ciidamada waxaan hambaliyaynayaa hoggaanka dalka
oo meesha maanta ay gaartay dowladnimada Soomaaliyeed dowr ku leh waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadka sanadkiisa inaan ku gaarno guul iyo horumar iyo nabad dalka Soomaaliya waa hodan sida laga warqabo waa ihaano waana ceeb waana sharaf darro wax garadka wax u bartay dalka iyo mas'uuliyiinteena Soomaalinimadu ku weyntaaba in dadkeenu maanta baahan yahay dadkeenu maanta inuu baahan yahay wax nagu kalifi kara ma jiraan ilaahay hodan buu ka dhiga dalka khayraad fara badan buu leeyahay shaqo la'aanta nolol xumada amni darrada in kastoon aaminsanahay in shisheeye gadaal ka fadhiyo kuwa Soomaalinimada nala wadaaga oo magaca nala wadaaga oo ismooda in ummaddu jeceshahay ummaddu wayda nacday ogaada waa laydinka quustay haddaad sharaf rabtaan isqabta ka soo noqda wadada aad ku socotaan ummadda Soomaaliyeed baabi'inteeda ah karaamada iyo sharafka qaranka Soomaaliyeed iyo calanka iyo ciidda u naxa anigu talaan idin siinayaa Soomaalidu runta waa nacabtaa waa ogahay inta badan runta qaata cali maxamed geedi waa walaalkiin haddaad siyaasiyiintiin way idinka wada horeeyay inta meesha halgamaysoon aqaano saaxiibayaalow dowladdii federaalka ku meel gaarka ahayd een ra'iisul wasaaraha ka ahay oo intiina badan la dirirayseen oo jilaafaynayseen ayaad madax ka noqoteen ogolaada marka in idinka horeeyay idinka waay aragsanahay macallin idin wada ahay wadadayda raaca wadada Cabdulqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore raaca dalka inta madax laga noqdo lama tuuriyo madaxda marka xilka hayse inta lala taliyo oo haday khaldan yihiin la toosiyo ayaa lala tartama maalinkii doorasho timaado hadda ka horan ka hadlay xil wareejinadu ma aha waa la soo jiidaa iyo darbiyada laga soo dhacayaa sharafka xil lagu wareejinayo xilalka waad arkayseen madaxweyne Sheekh Shariif sharafka uu ku wareejiyay waa ognahay madaxweyne Xasan Sheekh sharafka uu ku wareejiyay waa ognahay laakiin qoliyaha dhahaya ha ka soo baxa meesha war ilaahay ka baqay xishooda magaca iyo sharafka Soomaalida ilaaliya farmaajo waa madaxweyne muddada tartanka lagu jiro hadduu ku guuleysana waa hubaa inuu calanka iyo sharafka wareejinayo hadduu ku guuleysana waa lala shaqaynayaa iimaanka Allah idin galiyaan leeyahay hambaliyo ayaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iyagana telefishinka Shabeelle iyo telefishinka Universal TV oo noo galay halkii kuwii qaranka aan maal gashanay ee samaysanay ee albaabka lagu xirtay ee la yiri yaan qaranka loo shaqayn ee aad ogtihiin xaaladda ay ku sugan yihiin howlwadeennada ma haysto howlwadeennada maaha kuwa khaladka galay waa siyaasiyiinta wasaaradda xukunta iyo xukuumadda maanta jirta xilgaarsiinta telefishinka qaranka Soomaaliyeed meeshay ugu wada yimaadeen ee iyagu ma samayn aniga bilaabay iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne kasta wax ku darayay shaqaalihii meesha loo keenay loo xil saaray inay hogaamiyaan inay inta meel ku xirtaan ka dhigaan wax